duulihii Soomaaliya ee hawada lagu qabtay Misra ka baxsaday ciidanka Itoobiya 1977 duuliyeeda waxa uu ku dhashay degmada Buleburtay isagoo waxa ka soo bartay dalka Ruushka waxa uu ahaa xilli gidgadiya miiga waxa hawada uu ku qori jiray magaca Soomaaliya iyo xarfo kale dagaalkii Itoobiya 1977 ayaa waxa uu burburiyay dhifiisadii xabashada ee ugu cuslaa waxaana hawada ku qabtay diyaaradaha dagaalka Itoobiya oo garabka ka galay xilli uu rabay inuu garaaco talis ku dhawaad Addis Ababa raadiyaha Itoobiya ayaa laga baahiyay in ay Soomaaliya ka qabsadeen miig 17 iyo duuliyihii waday durba xabashada ayaa bilaabay damaashaad waxa ayna ku amreen in uu ka dago airport markuu hubsaday inay cagaha dhulka saareen kuwii galbinayay aysan ridi karin gantaalada ayuu xawaaro ku duulay hawada asaga oo marba dhinac u rogrogayo miiga si aan loola helin rasaasta ciidankii dhulka ee garoonkaasi ayaa ku hurgufay sawaariikh iyo lidka diyaaradaha waxa uu sii diqoyay taliska ciidanka waxaanu ka tegay Djibouti si uu shidaal ugu sii qaato xilli ay murugo ku jiraan madaxdii qaranka ayuu gacanka ka hadlay halow waa duuliye weedow oo ku guda jira shaqadii qaranka waxaa la ilmeeyay farxad alaas ayaa isqabsaday xarumihii gaashaandhigga iyo afisyoon intaba duuliye sare Cabdullaahi Weydo waxaa la siiyay bilada dagaalka iyo geesinimada ee dahabka ah geesi qaran ee ciidanka libaaxyada Afrika waxa uu geeriyooday 1984 duuliyihii Afrika duuliyihii mucjisada cirka waxa codsan jiray inay arkaan duuliyaal caalami ah iyo madaxdii imaan jirtay Soomaaliya waxa codsaday inay arkaan maxaabiis laga qabtay Itoobiya iyo maamulkii Mingista waana loo diiday inay arkaan